markan magaalada Hargeysa ee Somaliland odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka keenay dhul ay sheegeen in lagu haysto Hamza Cilmi ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka isha gobka ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ba'an ka muujiyay dhul ay sheegeen in lagu haysto waxaanay xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha ay khusayso ugu baaqeen in arintaasi si degdeg ah wax looga qabto waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya nimankaasi reer cabdi oday la yiraahdo ku haysta reer aw aadan meesha ay ku haystaa waxaan u malaynayaa maxkamad iyagu ay leeyihiin inay waraaqaha ka soo qortaan mid ummadda kale leedahay oo dadka u dhaxaysa waraaqaha kama soo qortaan niman xogagaal wax weydiinayana maaha iyo dadka dhulka horu yaalay way ka xanaaqayaan dadka dhulka u warhayay ee xogagaalka ahaa niman ka xanaaqaya weeye oo aan cidna la tusayn waxaanu haddaba idiin sheegaynaa laba beerood oo yaryar bay meesha ku lahaayeen labada beerood way kala go'naayeen laba meelood oo yaryar bay ahaayeen labada meeloodbana reer cabdi oday dad ka mid ah oo rag iyo dumarba leh ayaa labada reer ay ku qabsadeen ka iibiyey iibkaasay ku fadhiyeen nimanka meesha laga raray beerta ay ka iibsadeen ilmo Ibraahim Gurey 2010kii waxay ka xigtaa beerta reer aw aadan galbeed tay ismaanaadan dheer ka rareena waxay ka xigtaa bari ilmo aw aadanna way u dhaxeeyaan ilmo aw aadan qarni bay deganaa dadkii ugu soo hordegay meesha weeyii qoladanna dadwaan baa anaga noo yimaadeenoo deegaanna wax ma weydiiyaan cid kale wax ma weydiiyaan qofkii la hadlaba way xidhaan ma saldhigyada iyo maxkamadaha iyaga leh marka waxaan leenahay haddii meesha aan la doonayn in dhabaqa ka dhacdo waxa laga soo gaaro sida runtii hal sheego dadka deegaanka waxa la weydiiyo qof walba wuxuu leeyahay buu qaadanay wax kale ma qaadanay bas sanadood xadhi kama bixin nidii ka roo fal ku dhacay baanay inta waan xidhnaa waxaan leeyahay meeshu waa beertaydii marka waxaan maamulka dawladda sharafta leh madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaradda arrimaha gudaha nimanka dulmiga nagu haysta dhulkaan weligeena naalay 100 sanadood in ka badan 4 oo iska dhaxal nagu haysta ee fulinta nagu soo saaray waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda inay naga qabtaan oo xukunka xaq darrada in lagu soo saarayo in nalaga qabto warqada si dad ma anaga noogu socota hantideeda ugu socota taadiga badan ee hore xariga le wax walbana waan tirsanin waxa weeye waxaanu leenahay oo nu sheegaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ciidanka nabadgelyada janay Cabdilaahi Fadal Iimaan waa taliyihii ciidanka nabadgelyada wasaaradda cadaaladda waxaanu sheegaynaa madaxweynaha Jumhuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu gidi dhamaan waxaanu sheegaynaa annagu dad meel qabanaya manihin haddii 100 food nagu soo baxaan halkan agteeda waxa 24 qof naga aasan waaliinteena ku aasantay annagu kan naga dhinta halkan baan ku xareynaa kan olina halkan buu jooga waxa weeye halka hadii nologu si sharci darro dafna loo soo idhaaho mas'uul wixii halka dhacay mas'uuliyad waxa qaadi doonta cidii leh imisa caruuraan ku dhalay dadku sii dhalay baa jooga awowyaashoodii baa waxaan ku dhulka waxaan ku ka tagay kuwii ka sii horeeyay ka tagay ummadda Ilaahay waxaan ku wayna wada taqaana caalamka oo dhan baan yaqaana inta soo reeraa degan reeraan oo marxaati furayn ma jiro halkan ka cadeynaya beerta ilmo awaadan inay u dhaxayso beerta ilmo Ibraahim Gurey ay ka iibsadeen ilmo oday iyo beerta loo kala xukumay Cismaan Aadan Dheere wixii aan inta ahayn halka laga sheegaan inay been yihiin markay sidaa tahay waxa la sheegayaa in lagu soo saarayo beerta ilmo awaadan fulin dulmiya cid ay khusayso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha gudaha waxaan u cadeynayaa arinta in wax laga qabto hadii aan wax laga qaban in ay dhibaato ka dhici doonto Hamza Cilmi telefishinka